ayaa magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ka hirgelisay qalbiyood munaasabada xariga lagaga jiray qalbiyoodka waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland wasiirka xogeenka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco bulshada ku dhaqan xaafadaasi laga hirgeliyay qalbiyoodka ugu horeynba waxaa mas'uuliyiinta kala duwaneed ee munaasabada xariga jarka ceelkaasi ka soo qayb galay uga warbixiyay maareeyaha wakaalada biyaha Burco Sakariya Cabdiraxmaan Lulumbe waxaana hadalkiisii ka mid ahaa 9 cishana ku qodaan riigii wayna ku guuleysanay riigaas oo dhererkiisu yahay 130 sida maamulka hore sheegeen biyo macaan oo ku filan oo badan waa laga helay ceelashii horena waxaanu bulshada u sheegaynaa inaanu daminayno maadaama dhadhankoodu aad u adkaa annaguna biyo markaa aan ugu bedelaanahayn laakiin maanta ilaahay noo suurtageliyey biyo macaan oo ku filan xaafadda inaan helo mar dambe maanta laga bilaabo ma cabaysaan biyihii jarleeyo ceelkii la dhihi jiray ceel toddobaad insha allah ceelkan baad biyihiisa cabaysaan oo macaan wuxuu ku jiraa ceelasheeda kuwa ugu macaan waa ka labaad ayaan odhan karaa ilaahay baana mahaddaa iska leh waxaanu mahadna celinayaa hay-adda alhuda oo runtii ceelal badan waddanka ka qoqotay kana ka mid yahay wakaaladda markii ugu horreysay ay noo qodaan laakiin sidaan warbixinta ku hayo waxay ka shaqeeyaan arrimo badan oo kheyriya ceelkan maanta farxad bay noo tahay in ceelkan 21aad aan maanta xadhiga ka jirno kaasoo loo qabay baahi aad iyo aad u fara badan oo xaafadan ay u qabtay iyadoo ay dhacday 2 ceel oo ka qodnaa biyahoodii inay waxoogaa milix yeesheen xaafaduna ay in badan naga codsatay ilaahay wuxuu inoo fadligiisa iyo karabkiisa inoo suuro geliyey inaynu hay-adda khayriga ee huda ay noo qoday ceelka annaguna aanu ku darnay wixii imkaaniyaad ee bamka iyo beebka iyo maxaanku dhahdaa mishiinka iyo xadhigga iyo farsamadii tiknikaaltiga ahayd ee meesha taalay dhammaanteed qaar ka mid a bulshada ku dhaqan xaafadda laga hirgeliyey qalbiyoodkan ayaa soo dhaweeyey islamarkaana ka warramay baahiyahay u qabeen maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmada Burco ayaa ku bogaadiyey mas-uuliyiinta wakaalada biyaha Burco waxqabadka kala duwan ee dhinaca biyaha ay ka fuliyeen gudaha magaalada Burco ceelkii 22aad ee ay hirgeliyeen wakaalada biyaha Burco iyo hay'adda Al-Huda Foundation oo iska kaashaday in halka xadhig ka jirkiisa maanta aanu qayb ka ahaano aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta waxaan u joognaa inuu xadhig ka jarno ceelkan Al-Huda loo qoday wakaalada biyaha ee degmada Burco ceelkaas oo sababta uu ku yimid ahayd codsi uu noo soo gudbiyey maareeyuhu mudane Sakariya uu naga codsaday in aanu ceel u qodno maadaama ceelashii hore ay u badan yihiin qaar dhanaan bal in ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga dhigo ceel macaan muddo xaafadani saamuun adag kuma maydhan muddo dheer saamuun adag mariirana kuma maydhan malaha dakhligoodina ma aha qof shaamboo haysto ma maydhanaya halkan biyuhu qaraar bay haayeen aad iyo aad bay u cadilaayeen xaafadda ugu biyo badan bay haysteen intaan boqolaya ka xumaan anigu ma moodeen 22 ceel waxaan moodeen 100 ceel inta waayo waxaan ogahay nimcada waddanka ka jirta maanta Soomaaliland walba Togdheer biyaha sidaan uga qablaanahay waxaan u mahadnaqaynaa wakaalada biyaha ee gobolka Burco oo naga hawl gashay in badanna aanu wada wadnay ceelkani sida aan idiin sheegay mucjis ayuu ku hirgalay si aan ka fudud ceelashii hore la qodi jiray muddo 9 cisho ku dhammaaday wasiir xogeenka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha iyo agaasimayaashiisa runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa dadaalka iyo juhdiga ugu jiraan guud ahaanba qaranka sidii biyo ku filan goob kastoo haraad ka jiro ay ugu soo saari lahaayeen aad iyo aad baa u mahadsantiin baan leenahay subxaanahu wa tacaala in soo waafajiyey saaka inaan xadhiga ka jarno ceelkii 22aad ee iska kaashadeen hay-adda Al-Huda iyo wakaalada biyaha ee Burco waxaan leenahay hay-adda Al-Huda aad iyo aad baa u mahadsantiin jazaakumullahu khayran dowrka muhiimka runtii aad ka qaadateen qodista ceelka 22aad si gaara waxaan ugu mahad celinayaa Sheekh Xamda bin Cabdiraxmaan Al-Thani oo runtii isagu lahaa deeqdan ceelka lagu fuliyey sidoo kale waxaan u mahad celinayaa wakaalada horumarinta biyaha Burco
oo runtii muddadii ay maareeyaha iyo maareeya ku-xigeenka ay joogeen shaqo ballaaran iyo hawl ballaaran oo wanaagsan runtii ay ka qabteen wakaaladda biyaha. wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliland Cabdirasaaq Xuseen Albani iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Saciid Axmed Jibriil ayaa iyaguna ka warramay muhiimadda ay bulshada u leeyihiin biyuhu iyo sida ay ugu helan tahay xukuumadda Soomaaliland ay u qabeen dadka ku nool xaafadda Oktoobar ee magaalada Burco. in xaafadda Sheekh Bashiir maanta uu dhammaystirmay ceel biyo macaan oo uu dhan yahay wixii kale imkaaniyaad ama afka qalaad lagu yidhaahdo infrastructure ee u baahnaa si biyo macaan looga helo ceelka. ceelkani sidaa laydiin sheegay wuxuu ku yimid iskaashi ay hormood ka ahayd wakaaladda horumarinta biyaha ee degmada Burco oo ah marka waddanka la eego wakaaladda labaad ee ugu ballaaran qarankeena, waraabisana magaalada Burco iyo waqtiyada abaartu jirto gobolka Togdheer intiisa badan oo magaalada Burco ay u tahay biyo. si gaara aniga sharaf waxaa igu ah inaan maanta xadhigga ka jarno ceelkii 22aad oo bedelaya ceelkii hore ee lambar 7 ee qaraaraaday ee deegaankan ama xaafadan markii hore waraabin jiray oo farxadda kalena ay tahay in xaafaddii ceelkii horena maanta la fadhiisiiyo ceel cusub oo biyo macaan loo soo daayo. ceelkan halkan laga qoday ee ay iska kaashadeen iyada iyo wakaaladda biyuhu waa ceel macaan biyo macaan laga gaadhay, waana runtii qayb ka mid a baahidii bulshada oo la daboolay. wakaaladda biyaha Burco waa la ogsoon yahay, qaranku waa ogsoon yahay. si gaara hawshii ay qabatay muddada hadda wasiir cali iyo wasiir ku-xigeenku ay joogeen hawl ballaaran bay runtii gobolka ka qabteen, weliba waa wadaan. Saciid Salabaan Nuur, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.